بسم الله الرحمن الرحيم qodobada ugu doorno warkeena waxa kamid ah gudoomiyaha golaha xukuumadda mudane Ismaaciil Cumar Geelle madaxweynaha jamhuuriyadda Osaka raadiyay kalfadhigii 12aad ee golaha wasiirada oo si ballaaran looga hadlay qodob kaliya oo isagu ah ka ku saabsan hindisaha qaran ee horumarinta bulshada oo ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane Dileeta Maxamed Dileeta oo faahfaahin dheeraad uu ka bixiyay madaxweynaha jamhuuriyadda gudoomiyaha golaha xukuumadda mudane Ismaaciil Cumar Geelle ayaa isaguna halkaas khudbad waxa uu ka waramay hindisaasi qaran ee horumarka bulshada waxyaabo isagu markaasi udub dhaxaadka iyo ujeedooyinka laga leeyahay iyo siyaabaha kala duwan ee hirgelintooda iyada loo taabagelin doono madaxweynaha jamhuuriyadda waxa gees kale uu saaka dooday dadka iyagu ku dhaawacmay dagaaladii ka soconayay Soomaaliya iyaga Muqdisho laga soo daadgurayay dadkaasi oo loo qaybiyay dhakhtarada waaweyn ee Djibouti gaar ahaan dhakhtarka weyn ee PLC iyo dhakhtarka Balbala ururka bisha cas ee Djibouti ayaa waxa uu xusay xuska maalinta caalamiga ee bisha cas oo qaybta xasuuskaasi oo ka dhacay ruugta ururka bisha cas ee Djibouti markaasi uu leeyahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عويس ونحسن مروين يمضنيال لكو سو دواد وروحي دالكا وكري نيسو غاري عاوة يلو وركينو انت بدن عاوة وكاكومان دونو وركا غارهانا كو سابسان هندساها قرن ايه هورو مركا بلشد كاسو ماتا لوغاها لايه كالفردي لابيض صبناعاد ايه قولها وزيرة او دادية مدعوينها جمهورية قدومية قولها حكومة مدن اسماعيل عمر جيلي وحانا كالفردي قاسم لابيض صبناعاد وصوها مد رئيس الوزراء جمهورية مركاسي ka soo bandhigay qodobkaasi ka waramaya hindisaha qaran ee horumarka bulshada dhaqangelintiisa ama meelmarintiisa taasi oo madaxweynaha jamhuuriyadda isagu ka dhageystay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda khudbad halkaasi uu ka jeediyay oo kaga waramayo mashruucaasi isagu aad ka ballaaran ee ah hindisa ka soo yeeray madaxweynaha jamhuuriyadda waxana kalfadhigaasi golaha wasiiradu maanta iyagu ay ka hadleen mashruucaasi ballaaran oo ay si aad uga dhageysteen ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane Dileeta Maxamed Dileeta mashruucaasi isaga horumarka bulshada loogu talagalay halkaasi oo uu ra'iisul wasaare Dileeta Maxamed Dileeta khudbadiisa uu kaga wargeliyay golaha wasiirada sida loo dhaqangelinayo qorshahaasi iyo jihooyinkiisa kala duwan kaasi oo la dhaqaajiyay bishii Janvier sanadkan 2007 oo madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Geelle isagu uu ku dhawaaqay uuna u soo jeediyay golaha xukuumadda taasi oo lagu tira jiro in wadankeena laga saaro xagga saboolnimada waxana uu ra'iisul wasaaruhu khudbadiisa ku yiri bulshada ee madaxweynaha dalka uu dhaqaajiyay bishii Janvier sanadkan 2007 waxa uu ku dhisan yahay mashaariic dimuqraadiyadda cusub ee xukuumadda ku tala jirto hirgelinteeda waxana uu qayb ka yahay aragtida dhammaan shacbiga waxaana udub dhaxaad uu yahay saddex waaxood oo kala ah adeega xafiiska bulshada dib u cusboonaysiinta dagaalka lagula jiro la dagaalanka camal la'ida ee ku habsatay dhalinyarada iyo taakuleenta loo fidinayo dadka dhibaataysan hadafka ugu horeeya waa mid ku saleysan barnaamij degdeg ah oo lagu horumarinayo tayada nolosha bulshada ee degmooyinka ugu saboolsan iyo xaafadaha sidoo kale hadafka labaad waa mid lagu aasaasayo laguna xoojinayo tayada soo dhaweynta dadka xaaladoodu ay liidato istiraatiijiyadda ugu horeysa ee laga jawaabayo waa mid hortaba la ayimi doono goobaha ugu saboorsan ee u baahan gurmad degdeg ah waa mid aanu rabno sidii aan isu soo dhaweyn lahayn dadka iyagu ku nool xaafadaha goobaha reer guraaga iyo tuulooyinka marka la eego xagga dhismayaasha iyo weliba adeega bulshada waa in mudnaan la siiyo barnaamijkani degdeg ah ku aadan kobcinta nolosha dadka iyagu ku nool xaafadaha iyo goobahaasi oo ay saameeyeen saboolnimadu ujeedada barnaamijkani degdeg ah waxa uu safka hore soo marinaya qodobada ku xusan hindisaha qaran ee horumarka bulshada ee ku aadan sidii loo horumarin lahaa biyaha dhismayaasha iyo weliba adeega bulshada sida waxbarashada caafimaadka iyo weliba shaqooyinka iyo arrimo kale barnaamijkani degdeg waxa uu kala baxaya saddex qaybood oo kala ah la dagaalanka saboolnimada kor u qaadista tayada nolosha goobaha reer guuraaga iyo weliba xoojinta ammaanka hawlaha qaybta ka ah la dagaalanka saboolnimada
xukuumaddu waxa ay ballaarisay barnaamijyada kala duwan sida xaafadda beeka 12 oo dhawaan laga hirgashay mashaariic kala duwan sida dhismaha xarun caafimaad xarun xagga horumarka bulshada maskarad post police iyo weli mashaariic kale sidoo kale xukuumaddu waxa ay ku tala jirtaa in ay ballaariso barnaamijyada baahida aasaasiga ee horumarka ee ku saleysan xagga caafimaadka dhimista saboolnimada iyo kobcinta horumarka dhaqan dhaqaale barnaamijkani sidoo kale waxa uu ka jawaabayaa baahida ay tabanayaan dadweynaha ku nool xaafadda balbala oo iyagu cabasho ka muujiyay xagga korontada waxaana ajendaha ugu jira mashruuc lagu iftiimin doono xaafadda balbala kaasi oo la dhigi doono tamar iftiimiya oo lagu talagalay 1200 oo guri la dagaalanka saboolnimadu waxa uu dhigayaa in la xoojiyo lana maalgeliyo dhaqdhaqaaqyada horumarka sida lacagaha amaahda ee sanduuqa bulshada horumarka waxyaabaha la hiigsanayo ku saleysan la dagaalanka saboolnimada waxaa kamid ah aasaaska shaqooyin badan dhinaca reer guraaga barnaamij degdeg ah oo lagu kobcinayo horumarka dhaqan dhaqaale ayaa la meeldhigay xukuumaddu waxa ay ballaari doontaa barnaamijyada dhinaca baahida aasaasiga oo la gaarsiin doono 21 degmo oo ku yaala 5 gobol ee dalka gudihiisa oo lagu hirgelinayo 50 mashruuc waxa kale la meeldhig marin doonaa mashaariic dib loogu hagaajinayo ceelasha biyaha sidoo kale xukuumaddu waxa ay meel marin doontaa mashaariicda ku saleysan wax soo saarka haddii ay noqoto xagga beeraha si cidna cilada looga tagin waxaa la meeldhigi doonaa barnaamij saddexaad oo taageero siin doona dadka aad u tabaalaysan golaha wasiiradu waxay isku raaceen in uu ka fikiro meelmarinta sanduuq ku aadan istaageersiga qaran dhammaan arrimahaas oo dhan waxay ku hirgelayaan haddii la xoojiyo awoodda dhinacyada kala duwan lana kobciyo maamul wanaaga waxaana dhammaan ay qayb ka yihiin howlaha ku saleysan hindisaha qaran ee horumarka bulshada khudbadii ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane Dileeta Maxamed Dileeta oo loo soo turjumay Yaasiin Riiraash haddaba khudbadaasi kadib ayaa waxaa ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda xafiiskiisu soo bandhigay faahfaahin iyada ku aadan dhinaca hindisaasi qaran ee horumarinta bulshada oo isagu laamo kala duwan iyo dhinacyo kala duwan u kala baxaya kaasoo gabi ahaantiiba ku biyo shubanaya sidii horumar bulsho ay markaasi gaadho oo laga wada faa'iideysto loo heli lahaa waxaana hindisaasi qaran ee horumarinta bulshada isagu macne ballaaran ka bixiyay farsamo yaqaanada ka tirsan dhinaca xafiiska ra'iisul wasaaraha gaar ahaan mas'uuliyiinta u dhow ra'iisul wasaaraha iyagu la shaqeeya oo iyagu halkaasi macnaha ay ka bixiyeen uu ku aadanaa siyaabaha kala duwan ee uu hirgalayo mashruucaasi isagu la dhaqaajiyay kaasoo kala baxaya markaasi dhinacyo kala duwan la taabanayo haba yaraatee waxba aanan ka tagayn sidii bulshadu ay u heli lahayd horumar isagu huwaara oo samaraantaasina baahidooda ka jawaaba kaasi oo isagu dhinacyo kala duwan ka soo jeeda haddii noqoto dhinaca biyaha helitaankooda haddii noqoto xagga tamarta iyo weliba xagga sugidda amniga dhuuniga iyo dhinacyo kala duwan oo iyaga gabi ahaanba looga dan leeyahay in lagu dhigo saboolnimada dalkani ee jamhuuriyadda Jabuuti politique de consolidation d'un état moderne, de réformes et projets structurants générateurs de croissance et d'un développement humain dans ses dimensions économiques, sociales et culturelles, fondées sur les principes de bonne gouvernance. haddaba markii uu madaxweynaha jamhuuriyaddu uu dhageystay khudbadda ra'iisul wasaaraha iyo macnaha ay soo jeediyeen farsamo yaqaanada dhinaca xafiiska ra'iisul wasaaruhu ayaa madaxweynaha jamhuuriyaddu isaguna waxa uu khudbad uu halkaasi ka jeediyay kaga waramay mashruucaasi ballaaran ee horumarinta bulshada loogu talagalay ee isaga ka soo go'ay kaasi oo ujeedadiisu ay tahay in ummadda reer Jabuuti gebi ahaanteedba ay ka faa'iideysato khayraadka iyo horumar isagu isu dheeli tiran oo ummaddu ay markaasi gaadho hindisaasi madaxweynaha jamhuuriyaddu soo jeediyay waxa khudbadiisii uu kaga waramay kalfadhigaasi 12aad ee saaka ay isugu yimaadeen xubnaha golaha wasiiradu
Cette initiative est un ensemble. hindisahani waxa uu ku salaysan yahay fikrado midaysan oo ay ujeedadoodu tahay qayb ahaan la dagaalanka saboolnimada qaybta kalena ay tahay dib u habaynta maamulka si loo heli karo dhammaan wararka loo baahan yahay sidii kor loogu qaadi lahaa xaal nololeedka bulshadeena waxaana jirta tallaabooyin arrintaasi la xidhiidha oo la fuliyey hase haatee inta badan way harsan tahay waxaa loo baahan yahay inaad xoojisaan oo aad horey u marisaan isla markaana aad halkaasi ka sii wadaan dadaalka arrintaasi la xidhiidha idinka oo had walba isku taxallujinaya oo ahmiyadda siinaya wararka sugan ee inoo fududaynaya inaan dhan walba ka gudbi karno haddii markaasi ay qaybun hore u marto oo qaybta kale ay halkaasi dhaaf weydana waa jahawareer haddii aan markan tusaale ahaan u soo qaato dadka reer guuraagu aniga waxay la tahay daruuri ma aha in si looga saaro saboolnimada mar walba la siiyo taageero iyo caawimaad waxayse tahay muhiimiyaddu in dadkaasi la siiyo fursaddii ay kaga qayb qaadan lahaayeen horumarka xagga dhaqaalaha iyo bulshada ee dalka waayo iyaga ayay tahay inay dadka magaalada siiyaan waxyaabaha nolosha daruuriga u ah oo ay soo saar sameeyaan si ay ugu iib keenaan xagga iyo magaalada oo looga maarsan karo alaabada dalka dibaddiisa laga keenayo taasi ayaa keenaysa in iyaguna ay helaan kharashkii ay ku soo iibsan lahaayeen qalabka ay u baahan yihiin inay ku shaqaystaan waa inaannu hadafyo qayaxno oo aanu ogaanno inta xawaash iyo khudrad aan sanadkii dibadda ka soo iibsanno iyo inta uu gaarsiisan yahay soo saarkeennu isla markaana aan xadidno muddadii aan ku samaysan lahayn waxyaabaha dibadda inooga imanaya iyo shuruudaha loo baahan yahay si aan u dhimi karno alaabada dibadda ka imanaysa si taasi loo gaadhana waa inaan horey u dhigno baadhitaanada la xidhiidha xagga biyaha oo la wanaajiyo tayada carrada isla markaana kor loo qaado aqoonta iyo tababarada loo fidinayo beeralaydeenna waa in sidoo kale looga faa'iideeyo dadka xoolo dhaqatada farsamooyinka casriga ah ee ugu dambeeyey caalamka si ay nooga haqabtiri karaan baahideenna xagga hilibka iyo weliba caanaha waa in sidoo kale taageero la siiyo kalluumaysatadeenna si ay dadka u gaarsiin karaan soo saarka xagga badda ee kalluunka waxaa meesha taalla iyaduna sidoo kale arrinta khusaysa dhallinyarteenna oo ah in la isku dheeli tiro shaqada iyo dhallinyarta taasi oo u baahan laftigeegu dadaal aad u weyn waxaana dhici karta in la qabto fadhiweyne qaran oo arrintaasi lagaga hadlayo iyadoo aan waddankeenna ku soo rognay nidaamka dhigaya in maalgashi ballaaran lagu sameeyo shirkado fara badan oo caalami ah ayaa iman doona sidaasi darteedna dadkiinu waa inay noqdaan kuwo khibrad leh oo waxgarad leh iyo aqoon oo la shaqaysan kara shirkadahaasi ajnabiga ah waa in sidoo kale dhallinyarteenna looga faa'iideeyo oo aad loo baro afka ingiriiska oo isagu daruuri u ah si shirkadahaasi loola samayn karo wax isweydaarsi ama loola shaqayn karo madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geele uu saaka ka jeediyey kalfadhigaasi 12aad ee golaha wasiirada oo si ballaadhan loogaga hadlayay mashruuca ku aadan horumarka bulshada waxaana khudbadaasi noo soo turjumay cabdikariim xasan haddaba kadib golaha wasiiradu kalfadhigaasi uu yeeshay madaxweynaha hudaadiyey waxaa madaxweyne ismaaciil cumar geele isaga uu soo booqday dadkii iyagu dhaawac ahaa ee ku dhaawacmay dagaalada ka soconaya Soomaaliya waxaana dagaaladaasi iyagu ay hayeen kuwa dad fara badan ay ku dhaawacmeen oo dadkaasi xataa dhaawacooda Jabuuti soo gaaray madaxweynaha jamhuuriyadda haddaba dadkaasi ayaa waxa uu ku soo booqday dhakhtarada ay ku jiraan oo kala ah dhakhtarka weyn ee PTC iyo dhakhtarka Balbala
madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geelle oo uu weynayay wasiirka caafimaadka Cabdulla Cabdilaahi Migil ayaa waxa wartaba u booqday dhaawaca reer Soomaaliya ee iyagu ku sugan dhinaca dhakhtarka weyn ee Piltiye waxaana madaxweynaha jamhuuriyadda goobta ku soo dhaweeyay agaasimaha dhakhtarka Piltiye ee ku meel gaarka iyo dhammaanba shaqaalaha waaxda caafimaadka ee dhakhtarkaasi iyo shaqaalaha xagga maamulka ee dhakhtarka Piltiye waxa dadkaasi dhaawaca ee Soomaalida ah iyagu markaasi madaxweynaha jamhuuriyaddu markii uu soo booqday uu waraystay xaaladooda iyadoo dadkaasi ay yihiin guud ahaan 17 qof 11 kamidna ay ku jiraan dhakhtarka weyn ee Piltiye afar kale ay ku jiraan dhinaca dhakhtarka Balbala labana ay ku jiraan dhinaca xarunta caafimaadka ee ciidamada qalabka sida ee Djibouti halkaasi ayaa madaxweynaha jamhuuriyaddu indhihiisa ku arkay xaaladda ay ku sugan yihiin dadkaasi Soomaaliyeed ee ku dhaawacmay dagaaladii ka soconayay Soomaaliya ee iyagu saameeyay waxa hadda dadkaasi dhaawaca iyagu ay madaxweynaha ugu waramay xaaladooda caafimaad iyagoo samar ahaantaana uu mahad celiyay tallaabadaasi iyo gargaarkaasi walaaltinimo iyo bini'aadanimo ee madaxweynaha jamhuuriyaddu u fidiyay dadkaasi walaalaha Soomaaliyeed ee ku dhaawacmay dagaaladaasi ka soconayay Soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyaddu waxa uu dadkaasi ugu duceeyay in ay si dhaqso ah caafimaadkoodii u helaan oo ay dhaawacyadaasi ay uga kamaan waxa mas'uuliyiinta dhinaca dhakhtarka weyn ee Piltiye iyagoo ay markaasi halkaasi u diyaariyeen qalab iyo wixii ay u baahanayeen iyadoo Dr. Madliana oo macna faahfaahin madaxweynaha jamhuuriyadda ka siiyay sida ay u socdaan daaweynta dadkaasi dhaawaca Soomaalida ah waxa kadibna madaxweynaha jamhuuriyaddu mudane Ismaaciil Cumar Geelle uu tagay dhinaca dhakhtarka Balbala oo halkaasi sidoo kale ay dad dhaawac ah oo Soomaaliyeed ay ku sugan yihiin waxa madaxweynaha halkaasi ku soo dhaweeyay dhakhtarkaasi Balbala shaqaalaha goobtaasi ka shaqeeya iyadoo oo mar walba Dr. Median madaxweynaha ka siinayo macna iyo faahfaahin ku saabsan xaaladda dadkaasi iyo siyaabaha kala duwan ee loo daaweynayo iyo waliba dhaawacyada soo gaaray sida ay yihiin waxa dhinaca dhakhtarkaasi Balbala iyada sidoo kale madaxweynaha ku weynayay wasiirka caafimaadka Cabdulla Cabdilaahi Migil waxaana madaxweynaha jamhuuriyaddu halkaas uu ku arkay dadka iyagu dhaawaca oo tiradoodu 3 ay tahay oo laba ay uu ka gud yahay ilmo yaro markaasi laba jira oo iyagu u baahnaa daaweyn gaar ah oo halkaasi dhakhtarka Balbala iyaga lagu siiyay waxaana madaxweynaha jamhuuriyaddu mudane Ismaaciil Cumar Geelle sidoo kale dadkaasi dhaawaca ee Soomaaliyeed uu u rajeeyay caafimaad iyadoo halkaasna aan su'aalo qaarkood madaxweynaha ku weydiinay Djibouti wadankii ugu horeeyay ee gurmad walaalnimo ku bilaantinimo u fidiyay ummadda Soomaalida ee maanta halkan joogno talaabada aad qaaday oo hindise ka soo go'ay adiga maxaa xigi doona wallahi anagu dadaalkeenu aad buu yar yahay baan malaynaya maxaa yeelay waxa wax ka badan waa sameyn kari lahayn laakiin duruufaha ayaa asmaxi waayay gargaarkaasina ku bani aadamnimo weeyaan waa tuu lagu leeyahay weeyaan waa kuwa dhakhaatiirtii yani hawl galay wixii dad dhakhtarada halka jiray ay gacanta ku qabteen ay daweyn kari waayeen ama dhibaatooyin la kulmeen ayay nasoo siiyeen annaguna wixii imkaaniyaad aan leenahay dhammaantood ayaga taxta yaan hoos dhignay wixii dhakhaatiirta xirfad ay leeyihiin iyo gargaarka ilaahay in magaranaysaa ilaahay dawada ugu soo dhiibo ayaan rajaynaynaa wixii kale haddii loo baahdana waan ku noqonaynaa insha allahu tacaala madaxweynaha jamhuuriyadda uu jawaabayay Xuseen Cumar hadda waxaad ogaataan in iyada oo horseed uu ka yahay madaxweynaha jamhuuriyadda iyo wasaaradda caafimaadku ay markaasi ay dhaqaajiyeen hawl ballaaran oo dadka iyagu dhaawac ahaa laga soo daadgureeyay dhinaca magaalada Muqdisho dadkaasi iyagu ku dhaawacmay dagaaladii ka soconayay waqtiyadan soo dhaafnay magaalada Muqdisho waxaana koox iyagu caafimadeed ay halkaasi tageen magaalada Muqdisho iyada oo ay halkaasi kula kulmeen wasiiradda dhinaca caafimaadka ee dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya halkaas oo ay sidoo kale ay gaarsiiyeen daaweyn iyagu si dhaqso ah loogu tacaali karo dadka iyagu dhaawacyada ay ku gaareen dagaaladaasi saameeyay dalkaasi Soomaaliya waxaa maanta Djibouti laga xusay xuska maalinta caalamiga ee ururka bisha cas iyo laanqayrta cas iyadoo xuskaasna uu ka dhacay saaka xarunta qaran ee ururka bisha cas ee Djibouti
waxaa ururka bisha cas ee Djibouti isagu uu ku jira hawlgal ballaaran oo kaalinta u horeeya uu ka soo galayo marka loo eego dadaalka ay dawladdeenu ku jirto gaar ahaan ka hortagga dhinaca masiibooyinka iyo khataraha iyagoo saameeya xagga aadamaha waxaana ka mid ah sida masiibooyinka dabiiciga ah haddii noqoto daadadka iyo dhulgariirka iyo weliba xanuunada safareenka iyagu markaasi dadka u kala gudba iyo sidoo kaleba dagaallo iyaga colaadeed oo saameeya meel qaarkood waxaana xuska maalintaasi isaga mowduuc ahaan loo qaatay bani aadamka oo guud ahaan loo halgamo hawshiisa waxaana bani aadamnimadu ay tahay mid mal walba u baahan iyadoo habeeraati aan la kala soocaynin in loo gurmado dad iyagu oo ku dagaalamay goobo oo halkaasi dhaawacyo ay ku soo gaareen goobaha dagaalka iyo weliba howlo kala duwan oo ururka bisha cas iyo lanqeyrta cas ay fuliyaan kuwaasi oo caalamka oo dhan guud ahaan iyagu ka howlgala waxaana noloshu ay tahay mid sidoo kale ku xiran caafimaadka arrimahaasi oo iyagu ah kuwa guud ahaanba dadku ay inay u adeegaan ay tahay ururka bisha cas ayaana hawshaasi isagu wada isagoo ururka lanqeyrtu casna halkiisa hawsha markaasi uu ka wado waxaana dhalinyaro fara badan oo mutadawiciin oo ururka bisha cas iyagu markaasi ku jira ay soo bandhigeen arrimo fara badan oo la xiriira dhinaca daryeelka bani aadamnimada oo ururka bisha cas gaar ahaan hawshiisu ay tahay geeskana mas'uuliyiinta kala duwan ee ururka bisha cas iyagoo halkaasi khudbado ka jeediyeen waxay guud ahaanba kaga warrameen muhiimada ballaaran ee maalintaasi iyadu ka soo jeeda waxaana hawshaasi iyadu ay ahayd mid sidoo kale ay weynaysay munaasabada lagu bixinayay abaalgudyo la siiyay dhalinyaro iyagu ka soo qayb qaatay maalintaasi oo soo bandhigay gabayo iyo weliba heeso oo iyagu tartan ahaa kuwaas oo qayb ka ahaa xuska maalinta caalamiga ee dhinaca xuska maalinta bisha cas iyo lanqeyrta cas ee Djibouti taasi oo awlahaas oo dhan iyagu yihiin kuwa qayb ka galaya dhinaca xuquuqul insaanka waxaana gabagabadii munaasabadaasi sidoo kale la qaybiyay marakaniyooyin la siiyay dadka iyagu u baahan ee xaafadooyinkaasi balbala iyagu ku nool 62 sano ayaa ka soo wareegtay markii la kala seexday heshiisyadii dagaalkii labaad ee dunida iyagu soo afjaray waxaana heshiisyadaasi iyagu ay ahaayeen kuwa 8 meel la seexday waxaana munaasabad arrinkaasi lagu maamuusayo maanta qabanqaabiyay ciidamada Faransiiska munaasabadaasi oo ka dhacday xerada lagu magacaabo Quartier Brière de l'Isle oo iyadu ku taala xerada 5e Guillaume ciidamada Faransiiska waxaana munaasabadaasi iyadu ay ahayd mid loogu talagalay in xuskaasi lagu maamuuso iyadoo oo munaasabadana uu daadinayay taliyaha ciidankaasi Colonel Eric Biquet waxaana munaasabadaasi ay ahayd mid military oo uu daadinayay taliyaha ciidamada Faransiiska jooga Djibouti General Michel Aoun waxaana ka qayb qaatay danjiraha dawladda Faransiiska u jooga Djibouti Jean-Paul Angelier waxaa sidoo kale joogay taliyaha ku-xigeenka dhinaca gaashaandhigga ciidamada qalabka sida ee Djibouti General Hassan Ali Kamel iyo taliyaha dhinaca gaashaandhigga General Zakaria Sheikh Ibrahim waxaa sidoo kale joogay mas'uuliyiin rayid iyo military iyagu isugu jira oo ay ka mid yihiin gaar ahaan dadka iyagu ka soo qayb qaatay dagaalkaasi ee loo jiray bataillon Somali ama dadka iyagu Soomaalida ahaa ee dagaalkaasi ka soo qayb galay waa dagaalkii labaad ee dunida ee dagaaladaasi oo iyagu ahaa kuwa soo afjaray gaar ahaan bishii Abriil sanadkii 1945 dabayaaqadeedii taasi oo ay ka qayb qaateen dadkaasi iyagu Soomaalida ee bataillon Soomaaliga loo yaqaan oo iyagu qaar Djibouti ay ku jiraan oo dagaaladaasi iyagu markaasi guulo ka soo hoyeen meel qaarkood munaasabadaasi ayaa waxay ahayd mid lagu hortaba lagu furay salaan xagga calanka iyo weliba ciidamada kala duwan oo iyagu halkaasi laga warramay waxaana munaasabadaasi sanu sheegnay daadinayay General Michel Aoun taliyaha guud ee ciidamada Faransiiska ee ku sugan Djibouti waxaana munaasabadaasi iyadoo ay ahayd mid lagu soo gabagabeeyay kadibna arrimo iyagu la xiriira xagga abaalmarinta gaar ahaan bilado iyaga la siiyay askar iyagu munaasabadaasi joogay oo iyagu mutaystay bilado kala duwan waxaana halkaasi generaalka ciidamada Faransiiska ee jooga Djibouti isagu uu bilado ugu talay askar ka tirsan ciidamadaasi Faransiiska waxaana uu siiyay 3 biladood oo iyagu ah kuwa militariga ciidamadaasi Faransiiska ah waxa kale oo bixiyay 4 biladood oo ah kuwa heerka qaran ee mutaysiga oo saraakiil kala duwan iyaga markaasi la siiyay waxaana munaasabadaasi iyaga lagu maamuusayay sanad guuraha 26 ka soo wareegay markii la seexday heshiisyo soo afjaray dagaalkii labaad ee dunida iyagu ahaayeen kuwa lagu soo gabagabeeyay akhriska taariikhdii 9 May sanadkii 1945 oo waqriyay
General de Gaulle oo isagu halkaasi ciidamada Faransiiska uu akhriyay waqtigaasi generaalkaasi oo isagu ahaa ninka markaasi ciidamada Faransiiska daadinaya waxaana khudbadaasi akhriyay maanta ahaan General Michel Aoun taliyaha ciidamada Faransiiska ee ku sugan dalkan Djibouti taasi oo uu sheegay generaalku muhiimada weyn ee ka soo jeeda xuska maalintaasi oo iyadu ahayd mid dunida uu horseeday nabad u harta oo markaasi dagaalkaasi labaad isaga lagu soo gabagabeeyo waxa aan u gudbaynaa wararka kale ee ku saabsan dalka markani waxaana gaar ahaan dhinaca barnaamijyada ka baxa telefishinka Djibouti iyada dad fara badan iyagu ay la dhacaan dhageysigiisa mar walbana ay ka qayb qaataan barnaamijka loogu magac daray Dizikastan barnaamijkaasi oo daadiyo Ramadaan Qaasim waxa uu yahay mid mar walba ay dhalinyarada reer Djibouti iyagu xagga musiga ay kaga xaqabeeraan hadda barnaamijkaasi 4 sanadood ayaa maanta ka soo wareegtay markii la aasaasay waxaana hoostiisa afraad maanta isaga la soo martigeliyay dalwaangiga Bitowil oo soo markaasi ah wiilar dhinaca heesaha raabka lagu yaqaano oo reer Djibouti iyo gabadhu si aad uga hesha barnaamijkaasi uu dhageysato oo macmiil u ah waa baxsan jaamac barnaamijkaasi oo Ramadaan Qaasim uu daadiyo mar walba arbacada iyo axada ayaa waxa uu yahay mid sidoo kale abaalgudyo lagu bixin doono oo samaraantaasi xuska sanad guuraha sodonaad ee wadankeena awgeed lagu talagalay tartano la qabtay oo iyagu ah kuwo xagga gabayada oo ay soo bandhigeen dhalinyarada iyo barnaamijkaasi isu soo dubarida qui a progressé des années après. sidaasi waa yihiin kuwo gaar ahaan qofka u horeeya kaalinta horeysa soo galay soo heli doono lecture CDVD DVX iyo waliba ka labaadna uu heli doono shandada nooca xagga sportiga iyo waliba ka saddexaad soo heli doona 100 CD oo iyagu markaasi wax uu ku soo jelin karayo barnaamijkaasi oo ah mid sanad guuriisi afraad isagu xusay ugu dambeyn bal aynu soo gabagabeynay warkeenan iyo caawa dhinaca tartanka xagga xisaabaadka ee ay qabatay wasaaradda waxbarashada qaranka iyo tacliinta sare oo la kaashanaysa ururka Alliance Française de Djibouti waxaana uu ahaa tartankaasi mid xagga xisaabaadka loo galay oo sanadka 2007 loogu talagalay waxaana uu ka dhacay goobtaasi Alliance Faransiiska waxaana isagu yahay mid muddo 6 bilood soo soconayay laga soo shaqeynayay oo dhinaca horumarka xagga xisaabaadka wasaaradda waxbarashada iyadoo ay soo dibariday waxaana tartankaasi isagu mid bilowgiiba isaga lagu guuleystay iyadoo halkaasi ay macallimiin iyagu si mutadawacnimo u shaqeynayay ay uga qayb qaateen tartankaasi hirgelintiisa hadda waxa ciyaartii gabagabada ee finaalku iyadoo ay markaasi isu keentay 16 arday oo iyagu ka socda dugsiga Troisième-ka ee dhinaca dakhal oo iyagu markaasi qaybtooda kaalmo u horeeyay ka soo galay iyo waliba 16 arday oo iyagu ka socda fasalka secondka ee dhinaca magaalada Tajoora liisigeeda oo iyaguna qaybtooda markaasi kaalin wanaagsan ka soo galay hadda waxa halkaasi abaalgudyo lagu mutaysiiyay dhalinyarada iyagu kaalmaha wanaagsan ka soo galay tartankaasi dhinaca xisaabaadka iyada oo lagu talo jiro in laba dhalinyaro oo iyagu macal arday ah iyaga markaasi abaalgud ahaan loo diri doono dhinaca dalka Faransiiska oo arday ka socda dhinaca dakhil iyo ka socda dhinaca Tajoora oo halkaasi isagu munaasabadaasi awgeed isaga loogu talagalay in ay ardaydaasi ay u baxaan dhinaca Faransiiska gaar ahaan barnaamijka qaybta ka Alon en France waxaana uu mashruucaasi yahay ama hawlahaasi ay hayeen kuwa ka qayb qaatay danjiraha dowladda Faransiiska Jean-Paul Angelier waxaana hawshaasi ay mid guud ahaan si wanaagsan u dhacday marweyn iyo mudan ee warkeena ku saabsan dhinaca waxbarashada ayaanu caawa ku soo gabagabeynay warkii intaan habeen dambe hadduu eebaydmo saacadiinu caadiga ahayd aynu dib u isumin doono waxa aan magacinaya gebi ahaanba kooxdii soo diyaarisay warkan waxaan gebi ahaantiin baa ilaahay cawiis wanaagsan